soo dhawaada asxaabta channelkayga ku xiran soo dhawaada waxaan rabaa waqtigiina qaaliga ilaah subxaana watacaala idinkugu deeqay oo maaragtay haysataan inaad kaga faa'iidaystaan mararka qaarkood meelaha macluumaadka diiniga islaamiga ah iyo kuwa akademiga ah inaad gelisaan waa aragteen waxaan qabsaday haddeerta social media wax la yirahdo tiktok instagram facebook waxaan ku spend garaynaa waqti badan waxaan ka faa'iidnana oo aan entertainment ahayna ma jirto marka qaarkood please ka faa'iidaysta waqtigiina hadda maanta halkan challenge-gana waxa waaye oo aan rabnaa inaan helno dadkii wax wada lahaa kadib casharkii hore markaa ogaana qof walba percentage-ka uu leeyahay hadda waxaa la gaaray xilligii lacagsiinta lacagtiyaa la bixinaya 49,300 kan bay noqotay marka lacagta la bixinayo oo kambaniga uu siinayo dadkan qof walba marka looma kala qaybin karo soo mahan waayo qof walbata wuxuu leeyahay percentage asaga u gaar ah oo ama ka badan ama kan yar qofka kale qof walba marka xaqiisa in la siiyo waaye excelkan ku sameynaynaa ma ku samayn karnaa haawey su-aashu formuladana isticmaalana marka equals waxaan leenahay 39% times waxaan ku dhufsanaynaa total lacagta meesha lagu hayo waxaan ku dhufsanaynaa intraland waxaana soo baxday cabdullaahi 39%kiis inay isku bedeshay lacag ahaan 19,227 intaasoo la kacaya intaas la siinayaa is this true marka waxaan saxmiyaa waan jeegaraynayna tan loo qaybiyo totalka 39% waa soo baxay this checks waa kaa sheerkiisi marka waa ognahay sheerka cabdullaahi inuu yahay lacag ahaan u qaadanayo 19,227 oo ku biinayna inta kalena okay waxaan aragnaa marka nuurta 19%geeda inuu isku bedelay intaan maryama 10%geeda inuu isku bedelay 4,930 lacagtaan marka iyo lacagtaa inay iswaafaqaan waay waa jeegaraynayna ma iswaafaqsan yihiin meeshaa yeli waan ku tuurayna sooma aan ku tuurno waa kaa 49,300 checks 49,300 saana u kala qaybsadeen marka maadaama sheerarkooda uu kala badan yahay saas ayay u kala qaybsadeen waxaa maanta asxaabta channelkayga ku xiran idin tusay sida dadka loogu qaybiyo lacag bixinta markii la gaaray xilligii lacagta la siinayo qof walbana sheerka kusoo aaday u heli kale haddaa aqoontaan leedahay marka basically oo ahaysid certificate-kaaga kugu qoran 39% total amountiga lacagtii oo la declare garayna aa ogtahay inay tahay 49,300 already waa ogtahay marka intaas inay tahay lacagta aad jeebka ku shubanaysid waxaa inoo ballanah markaa idin sameeya cashar kale oo xiso leh iyo channelkan sidaas iyo nabadgelyo